بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا مدة الصوماليات إن صدق سعوتان شلي بيش صدحي لواتن عيد إن سنة جنوري لما يكون لواتن كي قالها وزير دولة الصوماليات إن فدق وذي وحكى صار قرار ay ku burinayaan qaraarkii 18 August 2017 soo baxay ee ku saabsanaa ONLF iyo halgamay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax go'aankaas oo sheegay in ay dowladda Soomaaliya aqoonsatay ururka ONLF inuu yahay argagixiso Qalbi Dhagaxna si sharci ah lagu dhiibay oo khalkhal ka waday dalka Soomaaliya runtii arrintaas waxay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan shoo ku noqotay meel ay joogtada waayo wax laga filay jamhuuriyadda Soomaaliya ma ahayn jamhuuriyadda Soomaaliya taariikhdeeda iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba waxay ku salaysnayd mabaadi guud oo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtada salo ahayd marka laga reebo halgamadii dhaadheeraa ee ilaa Axmed Gurey Taxnaa saad la socoteen Soomaaliya xisbigii xoreeyay xisbiyadii ka halgamay waxa uu weynaa xisbiga la oran jiray SYL oo ahayd actually lagu aasaasay dirnaba 1942 ugu horseeday xorriyadda ummadda Soomaaliyeed shucaar oo noqday midnimada Soomaaliyeed markii mabaadi'dii lagu aasaasay ummadda Soomaaliyeed wagaas runtii wax u dhigma maahan go'aanka meesha ka soo baxay soo kale dowladdii daakhiliyadda ahayd ee gaarsiisay Soomaaliya xorriyadda 10 sano ee mudane Cabdullaahi Ciise madaxda u ahaa hataa waxay diideen xadka Soomaaliya la qeexo sadla socotaan ilaa iyo maanta Soomaaliya Itoobiya xadka laga soo bilaabo doolo ilaa laga gaaro waqooyiga Soomaaliya hal aqoonsiyo ma jiro waa xad temporary ah way marka weligeed ummadda Soomaaliyeed ma aqoonsan yani dhulka Soomaaliyeed inuusan ahayn dhulka baxsan dadka Soomaaliyeed midnimadiisa taawikii jabinaysay dowladdii rayidka ahayd ee 1960kii xornimada qaadatay ilaa 69kiina saasoo kale dagaalayba u gashay qadiyadan iyo yani walaalahan Soomaaliyeed lafooda waxay yeelaan muxuu ahaa in dhulkan hadda aan joogno xalana yaa ugu caansan raggii waaga dagaalka galay maanta waa ninka calanka soo isku duubay ku dhintay magaalada Xamarna waa xalana airportkay ku agtaala taana mabaadi'deedu way jabtay ku dhisnayd ummadda Soomaaliyeed inay mid tahay walaalo tahay dowladda Soomaaliyeed dhulkaas ayna aqoonsanay dhul maaragtay dadka la gacanta ugu jira waxa ku xigay dowladdii kacaanka saasoo kale dagaalkii 77kooda intuu ka dhacay magaalada hadda aan joogno Jijiga la yiraahdo Kaaramadha inta u dhaxaysa Xaadow ilaa xadka Soomaaliya ugu yaraan 20,000 wiil Soomaaliya iyo gabdhood oo Soomaaliya ka yimid baa lafooda yeelaan taasna way jabinaysay يعني loo aqoonsaday halgankan ummadda Soomaaliyeed argagixisay yahay dambi wuxuu ka galay shuhadadii Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ah iyo shuhadadii Soomaali galbeed halka ku dhimatay waxa kale oo ayadana muxuu ahaa dowladii ku meel gaarka ah 91 ka dambeeyay ilaa 2018 hal dowlad falkaas aqoonsatay ma jirin marka go'aanka soo baxay 18 August 2017 wuxuu ahaa go'aan dhaawacay ruuxadda iyo midnimada iyo dadnimada ummadda Soomaaliyeed lagu waxyeelay min nafti huraah isla markaana jabhada xaq u dir halgamaysa shacabka Soomaaliyeed xaqiisa raadinaysa aaminsan midnimada Soomaaliyeed kana muuqata saameeyada maaragtay ummadda midnimada Soomaaliyeed in wax loo dhimay bay ahayd runtii marka go'aankii ay sida geesinimada u gaareen kabineetka Soomaaliya ee uu hogaaminayay mudane Maxamed Xuseen Roble wuxuu ahaa go'aan geesinimo leh oo taariikhda ummadda Soomaaliyeed sharafteeda iyo heebadeeda soo celiyay aadna waan u soo dhaweynaynaa waxaan u aragnaa vindication waxaan Ingiriisku yiraahdo ah yani in dhibkii ku dhacay yani qalbiga ummadda Soomaaliyeed la dhayay oo runtii wax weyn ummadda Soomaaliyeed runtii wax u taray waxa yani xusid mudan go'aankaas ma taaban oo kaliya Soomaalida ku nool dowladda Soomaaliyeed laakiin qof kasta Soomaali ah min laga soo bilaabo laamo agaarkeeda ilaa oboq ilaa muxuu ahaa Hargeysa dadka Soomaaliyeed way gelgishay arrinta ayada marka runtii xalay farxad bay u ahayd runtiina wax lagu farxo weeye waana ku mahadcelinaa kabineetka Soomaaliya guud ahaan dowladda Soomaaliyeed oo idil
shacabka Soomaaliyeed inta ka qayb gashay waxaan u aragnaa arrintaas inay tahay guul ummadda Soomaaliyeed soo hoyatay annagana waxay muujinaysaa xaqa Soomaalida u dagaalamayna in xaq darro ahayna aan nahay urur gobonimo doona oo shacab Soomaaliyeed xaqiisa raadinaya xaqiisa ay ka tashiga raadinaya xaqiisa raadinaya sharaftiisa raadinaya marka insha Allah taas waan ku mahadinaynaa waxayna noqon doontaa taariikh cusub oo bilaabatay ummadda Soomaaliyeed oo xilligii xorriyadda Soomaaliya ay soo kala annaga maanta noo tahay taan nahay dadka degan dowladda deegaanka Soomaalida taasan kaga baxayaa dhammaan intii ka qayb gashay iyo intii ka gilgilatay dhammaan Ilaahay ka ajar siiyo waxaan rajaynaynaa in marka haybadii xamar oo ahayd nuurka ummadda Soomaaliyeed caasimadda ummadda Soomaaliyeed Muqdisho waa tii dadka Soomaaliyeed hoy u noqotay waa tii qaxootigeena Soomaaliyeed saldhigga u noqotay waa tii shucaaca iyo nuurka Soomaaliyeed ka baxay marka sidoo kale maanta xamar sidoo kale nuurkii dib ugu soo noqday waxaan rajaynaynaa sida ummadda Soomaaliyeed caasimad ugu ahayd inay ay dib ugu soo noqoto waxaan kaloo rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed khilaafka dhex yaalla hardanka siyaasadeed dhibaatooyinka yaalla in Ilaahay ka qaado dowladda Soomaaliyeed sharaftii heybadda ku lahayd geeska Afrika iyo adduunkaba sideeda ay ku soo noqoto wayna bilaabatay wadadeena way saartay insha Allah taas intaasan kaga baxayaa runtiina waa aad baan u xamaasanaysay waxa laga hadalkayga laftiisu inuusan dareenkayga ma muujin karo waxaan rajaynayaa mana oo kaliya mudana Cabdikariin Sheekh Muuse wax dhibaato ka soo gaadhay weeraraan 2,000 oo xubnood oo jabhada oo aan lafaha yaa meelo badan oo laga soo dhiibay xanuun badan oo Soomaaliyeed ku baadhay taas lafteedu waxa يعني ضيع قانك هلك كدعي سو كلا دولة goboladii Soomaaliyeed ee laga bilaabo min Hargeysa ilaa intii kale waxaan rajaynaynaa inay ku daydaan oo ay arimihii dhacay ay laftooda ay khaladkaas ay apology ka bixiyaan oo ay qirtaan oo ay nadayaan xanuun badan baa naga hayay annagu kulli go'aan waxaan noo ahayd wax kasta oo Soomaaliya naga soo gaaray inaan weli ka ficil qaadan sidii bayna weli noo tahay siyaasadda jabhada waxa weeye Soomaali waxa weeye waa walaalaheen weeye يعني وهويجين وقلبيجين وي ما كلا قيب سنين مركب ورالك هدي وقجروا فيك سو قاعد مدي ليس وأنا ممكن أتشاهد تكبر أنا ما سو قارس وأنا كون فرح سنة أرتايني هالك يعني كل جوك ستو إن كودهان وحن كلا رأينا نوانت كهالو اسبدل وين بكسر على جيس كأفريقيا خاصة إثيوبيا ولا صعود دجالو وين بكبر عيا وقويجا إن دجالو سوحي سامين لما سياسة دي يحصلون إثيوبيا إن هذا سياسة علوس بعجرة سليقنا وحكوها يا حوين وماذا أي أسكوها إثيوبيا أو قيبسي يعني إن يعني قالوا البحث كده يسأل ماذا والبقينا أنت غبضا سياسة إثيوبيا عند كونكتو يعيدوا أهداف تدا سياسة هذا فلوس لما حوجة وين بجرة حوجة فدراليزم كأي كتشيء يحوج الدولة إنه من إثيوبيا أو يونيتري ستيت وحلها كسوع عليه وحن مدهر دكاس إنه وجيه بدن يشيء إن ومدى سوالف كان بحث كجرتا أنه وحنا هاي ومدى أمز الحقائق كتشيء شعوبته إثيوبيا لماني أدون كمان يعني أرنتها صوم حوها يعني شعوب بدن أمسيهم يعني فهمتي لقوميستي العذابين بعد بدن لوجيستي مركب حقوق جاسو وعذر يعني هي جدي كسعتي وحنونك يعني وحمركو كركر دري يعني حنون مركب عواش حقوق له ودلع ملح من النقضاء ملح دلع يسوي يعني وحن رجينا إنه كل ما ندون سلام الله أقوس الحقوق شعوبته هذا نطلع قنصن تلك إثيوبيا دجال كما بحي أما وغير كدعه أما جيس كأفريقيا أما حق الصومال كدعه وأوروبيا كدعه أما عفرة كدعه وصعونية والدجال مدة قرن كبدن السعودي سلكي سنو حاويان ضدوني إن ضدك عبيد ثان أو أدون صلان يكسر عليه النظام يعني أدونك كتجي نظام ديمقراطي حر أدونك ما أنت جو أدونك ويسبدلي حاجة سوء صعدة مركع من نقول كرت تاريخنا ما أقبلش إن جدار تاريخ هرئي صعدة marka Itoobiya inay nabadgelyo ka dhalto dimuqraadiyad ka dhalto xuquuqda shucuubta la ogolaado hadii la wada noolaan karo la wada hadii kale la kala tago bay noqonaysaa oo ay nafsiyadeeda marka wax ku salaysan tahay waagi hore waxa uu dagaal badan baa ka dhacay muddo qarni ka badan dhiigga daay geeska Afrika oo la faxay si dhab u qaadatay in wadada non violence ka xaq ku raadsin nabadgelyo ku raadiso xaqa ummadda Soomaaliyeed siyaasad iyo xeelad iyo ku raadiso taasana wali haynaa siyaasad jabhadu isma bedelin waa sidii weey oo in lafmaaha oo kaliya xisbi siyaasi oo tartan xukun u tartamay waa dhaqaaq siyaasi oo shacabka Soomaaliyeed ee degan min 100 maayo xadka Kenya ilaa degan muxuu ahaa dawan leh oo ah xadka Djibouti xaqiisa ay ka tashi raadinaya xaqiisa siyaasadeed xuquuq insaankiisa xaqiisa nolol dhaqaale siyaasadeed bulsho raadinaya marka uu haynaya arinta ayada kama harayo
urur isdhiibay maaha waa urur u taagan sharafta iyo heybadda ummadda Soomaaliyeed deegaankan wuuna wada sii wada doonaa kaalin buuxdana uu kaga jiraa siyaasadda maanta yani diblomaasiyan yani ONLF waxay ka dhisan tahay ilaa in ka badan 70 dal adduunka muhiim ku ah laga bilaabo New Zealand oo Pacific ku taala ilaa Mareykanka ku yaala muxuu ahaa Cotton State leh Pacific asna dhinaca kale kaga yaala marka wareegaas adduunka siyaasaddaana wada doonaa mid dibadeed mid gudeed waxaana rajaynaynaa in siyaasaddaas inay keento isbedel siyaasadeed siyaasaddaas waxay saameynaysaa dowladda Soomaaliya يعني قاعن كان نبض أنكارني وحكى أمر تحسلوني جيس كأفريقيا وإذن ما أنت سوماليا وإنه بتقليه إن ويسامين الدولة الصومالية اللي حدن كي تضواتك كذا قالك كشيء وحي سامين إن ما أنت مدة الصومالية وحكى دعي قيب اللي بحث سياسة ما كعيد مركا قيب بكرتها هي سياسة أوان إنه مدة الصومالية في وقتها شو ويبدأ وأنا سياسة دلوقتي وجيسن جودهان تاس كجب حياة يعني أوان لفنو حي عم سنتهاي إن حقائق كتشيء waxaa soo socda wax la yiraahdo national dialogue oo Ethiopia ka socda national dialogue asu haduu noqdo mid genuine mid macnaha daacada oo ay dadku si xor ah u qayb galaan oo dhexdhexaad caalami ay joogaan oo lagaga hadlo mustaqbalka Ethiopia qolo gooni aanay dominate aanay ku amar ku taagleen waanu ka qayb galaynaa guud ahaan afkaartan qabno shucuubta Ethiopia dalba qabta shucuubta Ethiopia ka soo daashay dictatoriyad way ka soo daashay qolo gooni ah maartay ku amar ku taagleen xisbi gooni oo madax kaga fadhiisay ka soo daashay dhammaan waxay doonayaan xorriyad nabadgelyo ayahooda ay ka tashadaan ismaamulaan taasaana ka midnahay asxaab badan oo Ethiopia ka dhisan cilaaqaad baan leenahay taxaaluf baan leenahay waxaan rajaynaynaa hadda waxa talaabooyin waxa la qaaday hor u socodsiinay dimuqraadiyadda ay ka mid tahay in la ogolaado maxaabiista in la sii daayo waxaan rajaynaynaa dhammaan maxaabiista xiran in la sii daayo qolo walba ay noqotaba waxaan rajaynaynaa wada hadal la ogolaado waxaan rajaynaynaa gacanka hadalka iyo dagaalka inuu istaago oo shucuubta Ethiopia dhammaan si hal isugu yimaadaan si nabadgelyo ah intaasana wadayna waana diblomaasiyiin taas ku dhisantahay cid walbana waa la tacaamulayna idaan ugu xumaad u qabno malaha deegaanka Soomaalidana waxa ka socda naftiisa dhaqaaq ay wada hadal iyo dib u heshiisiin iyo maxaa in la isu keeno waxa jira guddi hadda socda oo ka kooban aqoon-yahan iyo ganacsato iyo odayaal iyo xisbiyada siyaasiga oo doonaya ummadda Soomaaliyeed bal inay siyaasadeeda midayso hal hadaf yeelato kaasna waan dhiirigelinaynaa dowladda deegaanka Soomaalidana wada hadal baa waa noo bilowday ujeedada kalena waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed haday wada midaysan tahay ama mucaarad ha noqdo ama muxaafid ha noqdo dowladda noqdo xaqeena si fudud baan u helaynaa waxa codkeena ugu dheeraanaya haddaan kala soconana laakiin waxay keenaysaa in muxuu ahaa awoodeena ay yaraato marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inay taana sii socoto guud ahaanna waxaan ku faraxsanahay deegaanka Soomaaliyeed inay deegaanka ugu ammaan badan maanta Ethiopia guud ahaan inta la isku yiraahdo gaar ahaan geeska Afrika taas kaga baxaya waxaad la socotaan aragtida mustaqbalka anaga waxaan aragnaa geeska Afrika wuxuu nabad ku heli karaa shucuub badan baa degan Soomaalidu waa in ka badan 35 milyan way Oromaduna intaas in la mid way amxaara jira Oromaa jirta Tigray Jacfar baa jira geeska Afrika xuduudahan gumaysigu sameeyay wax macna ma sameeyay shucuubta geeska Afrika ku nool qowmiyadaha kala duwan kala afka kala deegaanka oo isu baahiin nolol ba ka dhaxaysa waxa ka dhaxaya muxuu ahaa dhaqan dheer oo ama dhalasho qaarkood mid walba asad beelada Soomaali mid weyn beeladahay waxay leedahay dhul wada ballaaran qowmiyadaha kale waxay leeyihiin wax soo saar badan biyo badan bay leeyihiin beeray leeyihiin waa la kala faa'iideysan karaa marka yani qolo ku amarku taaglan ka tamajirta yani laga bilaabo Kenya ilaa laga gaaro Eritrea iyo Djibouti iyo muxuu ahaa xagga koonfurta Suudaan iyo Soomaaliya كل قوميها كنول إن لو فكرة لقبحه يعني خذت جميس ودجية هلك على الوقوف لانه وحكوين وأمره كانوا وحكوا ما كرت عدالة ومدوا حقوقنا العقراء مرك إن شاء الله أنكم مستقبل كحنا لنا إنه رجوين أنك قبل نجيس أفريقيا نقول أكبر وأقبل أفريقيا وإشتغال بكجرة وذي ليهين خيرات بين حولي ليهين بي ليهين هدي عقل مسكح في عن اعتماد يعني مين ذا كبح أنا كل جماعة حلي على جاري كرجول مركز أساسا نقول أنا في شركة فوق إنه جيس كأفريقيا نقول دون مال برواقع إن تذكر كلنا ولا لو بدون أنا ويكون على زون عدالة السنان إلا سحرمية إنه قدام بين باش عالم وحن لنا هاي وحن دريمنا إني ولي فاهمين قضية الصومالي كانت كي جت جيس كأفريقيا أو مرة لا يريستو أما هالنقطة محوها سياسة الوصة بيني أما غاب كلا رقمية
aad baan u dareemaynaa inaan yani kaalinta ummadda Soomaaliyeed ku lahayd yani siyaasadda geeska Afrika mar walba hoos loo dhigo ama jamhuuriyadda ha noqoto sida loola dhaqmayo ama ha noqoto annagoo hadda maaragtay deegaanka Soomaalida ama kuwa kaleba marka in loo baraarugo يعني إن كنا هاي يعني عضو مهم أو سياسة جيسك أفريقيا سامين وين كله هدي الحقوق الأقران شرفته هي بدو جيسك أفريقيا وسدقين ثاني بيش عالم كانوا شيءنا وضمبين وحكي جرا أمر أضحون جيسك أفريقيا قارة هند ولدنا الصومالي ده أما هالنقطة إلا الجارس كينيا وقوي كذا صومالي إذن وكوفي تنتهي جيبوتي بجارسة مركز أريتاس إنه حيوبا عنتهاي أبارتاس إن هتيجي كله بقى معاها يعني معاها السيو أيوبا هنيد إن بيش العالم كانوا باقينا إن جرجار دق أوفيزيان إن شعب كصومالي إنه وحول بصعبة عنتها اللي جرجار ومدة الصومالي هاي جرجار ستو أما صومالي هاي جوكتو أما قرب جوكتو هالنقطة شعب كصومالي ما أنت وذكر إن حلقة في الصومالي وسنقاجة ودمان أمور ودمان مركز إنه ليس جرجار سدو لما بيش العالم كدولة جيسك أفريقيا جرا أما إثيوبيا هالنقطة أما صومالي هالنقطة أما جيبوتي هالنقطة أما إريتريا هالنقطة أما كينيا هالنقطة أما كوفي السودان أما السودان إن يعني وحي جرجار لو جيسك بيش كنا معها صومالي لبوين بقصة صعدة صدق بلا صعدة حوله وحير باكهر وحبب بدن كما هردونه المركز إن كل دارنا إن وسنقف صومالي أو لمن قاجة يون ولما دولتان الصومالي ده ما أنت عنت أيها كوهية تذكر عنت كوهية إني حلوين سارين هكوت على القران قيل هذا هبدين ويداليا هذا لكن إنكم فلان معها إنكم فلان من نقول دولة الفدرال الإثيوبية الحلو إنها سارا مركز أنت ولا له الصومالي إلا صومالي إلا دبدا وحن كعصنا إني إيش كوهية يعني أرنت عباران وحن يبوين بانا كإيمان كرا مركز أنت سنكسو كوهية إنه حنا رجينا يقول من الصومالي ومدة الصومالي جوكتب إني براري إنه بتقولي برواق كنا ولاته ومراد لماذا من لماذا أنا أتكسان قبيل كإيو بحواها يعني حكومة يرك يقولها الإسكوهين يكونات ضد مدة الصومالي وإلهي ما عرفت مدة الصومالي قرقار وقلبي محابرات سمري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.